السلام عليكم أصحابي كسو دوادا إيماشو فضلا هدي أداوانيسو موقالكان لايك سار كنا سو بير channel كاين أديغو دهيا سبسكرايب سيني شير جري شيخ عبد الرحمن السديس wuxuu ku dhashay magaalada Qaasim ee dalka Sacuudiga sanadkii 1961 wuxuuna waxbarashadiisa ka bilaabay magaalada Riyaad wuxuuna Quraanka Kariimka xifdiyay isagoo 12 sano jir ah Sudaysi wuxuu ka qalin jibiyay kulliyadda shareecada ee jaamacadda Qura sanadkii 1982 wuxuuna cilmiga shareecada ka qaaday shahaadada PhD-ga sanadkii 1995 waxaana loo magacaabay imaamka masjidka Al-Harameyn sanadkii 1984 isagoo 22 sano jir ah sheekha waxa uu ka mid yahay macallimiinta sare ee waxa ka dhiga jaamacadda Qura sanadkii 2012 waxaa loo magacaabay madaxa guud ee qaabilsan arrimaha xarameynka masaajidka nabiga iyo xaramka kadib dikrooto ka soo baxday boqorkii Sacuudiga boqor Salmaan sanadkii 2016 ayaa sidoo kale loo xil saaray inuu noqdo khatiibka xaramka sanadkan 2020 Sudaysi waxaa markaa loo magacaabay madaxa guud ee xarameynka muddo dhan 4 sano maalmo ka hor baraha bulshada ay ku wada xiriirto gaar ahaan dadka Twitter-ka isticmaala ayaa soo qaadanayay muuqaalo ay ka soo gooyeen khudbadii 4 bishan September ee uu Sudaysi jeediyay halkaas oo ay dadka isku dhaafsanayeen fahamkooda ku aadan alwalaa walbaraa iyo xiriirkii uu nabiga nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee uu la lahaa Yahuuda Sheekh Sudaysi ayaa yiri sida ku cad muuqaalka la soo jiray waxaana ka mid ahaa digniinaha muhiimka ah ee masaa'isha caqiidada iyo in aan dadku aan faham dhab ah ka haysan mowduuca alwalaa walbaraa iyadoona ay dadku isku khaldaan iimaanka qalbiga iyo in lagu dhaqmo wanaaga marka ay timaado xiriirka ka dhaxeeya shakhsiga iyo dawlad وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا في إسلامه وهكذا في وقائع كثيرة متعددة تؤكد أن حقائق الدين تستقى من الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة فأين هذا المنهج الأبلج من الركون للعواطف المشبوبة والحماسات الملهوبة بل علم وعقل haddaba sida ku cad hadalka sheekha Sudaysi wuxuu rabaa in xiriir lala yeesho Yahuuda isagoo soo qaatay xadiiska nabiga sallallahu wa sallam alayhi iyo Yahuudi oo xiriirka la lahaa nabiga sallallahu wa sallam alayhi ma waxay haysteen dhulka muslimiinta sida maanta Yahuudani haysato dhulka barakeysan ee magaalada Qudus ay caasimadda dalka Falastiin Yahuudani ma aha kuwa xiriir lala yeelan karo maxaa yeelay waxay haystaan dhulka Falastiin maalin kastana waxay wadaan dhul balaarsi iyo dil joogta ay u geystaan dadka Falastiiniyiinta ee guryahooda looga yimid haddana xoog looga haysto ma lahan xaquuq qofka Falastiinka ah haddii uu xanuunsadana ma lahan cisbitaal lagu dabiibo sidoo kale ma lahan aqoonsi qofka Falastiinka ah maalin aan sii fogeyn waxaa baraha bulshada qabsaday nin waayeel ah oo ay si xun u jirdilayaan ciidamada Yahuuda waxaana laga burburiyay gurigiisa isagoon ogeyn halka uu aadayo maxaa yeelay waa dhulkiisa haddana waa hoygiisii isaga lahaa Sheekh Sudaysina wuxuu rabaa in Yahuuda xiriir la yeesho dadka walaalaheena ee Falastiinta waxay maalin walba kala kulmaan ciidamada Yahuuda dil joogto ah iyo barakicin odaygani Falastiinka ma garanayo sababta lagu dilayo waxaanu arkaysaa in ay jilibka madaxa ka saareen isagoo ay dhulka la dhacayaan kuwa kalena ay dul taagan yihiin waxaa jiray dad badan oo baraha bulshada ku baahiyay in Sheekh Abd Alrahmaan Sudays laga tiray shaqada xarimka kadib markii uu ka hadlay xiriirka Sacuudiga iyo Israa'iil haddaba arintaas ayaan wax badan ka ogaanaynaa boqortooyada Sacuudiga ma aysan xaqiijin in shaqada laga tiray Sudaysi iyo xitaa warbaahinta dalka Sacuudiga waxaana lagu tilmaamay warkaasi kuwa aan sal lahayn oo aysan cadeen meesha laga soo xigtay haddii aan tusaale ahaan u soo qaadano Sheekh Abd Alrahmaan Sudays wuxuu 24 saac ugu dambeysay uu watay howlihii uu ka hayay xaramka sida lagu daabacay bogga Facebook-ga xaramka Sheekh Sudays ayaa 15 bishan September kormeer ku sameeyay
qaybaha biyaha samsamka ee lagu shubo dhalooyinka si loogu qaybiyo dadka xaramka ku sugan. Sidoo kale 9kii bishan Sebtembar waxaa bogga rasmiga Alxarameynka lagu qoray sidaan in dad yar ay si macno la'aan ah u fasireen khudbaddii Sheekh Cabdiraxmaan Sudays, waxayna baahiyeen muuqaalo iyagoo muujinaya aragtida ah in khatiibka sharafta leh uu riixayo in la soo celiyo xiriirka dalalka qaar ee dhanka siyaasadda. Qoraalka waxaa sidoo kale lagu sheegay khatiibka waxa uu ka hadlay in ay wanaagsan tahay in xiriir fiican dhexmara dadka diimaha kala duwan iyo xulafada uu nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee la lahaa Yahuudda ku nooleed Madiina, iyo sidoo kale in la joogteeyo wanaagga uu Islaamka faray ee qulubta dadka kale ku hoggaamisa in diinta Islaamka ay aqbalaan, ayaa lagu yiri warbixinta bogga Alxarameyn. Sheekh Cabdiraxmaan Sudays ayaa si caadi ah u sii watay shaqada imaamka, oo mararka qaar wuxuu tujinayay salaadaha sida ka muuqata muuqaalada boggaasi lagu daabacay. Taasina waxay meesha ka saaraysaa arrinta ah in Sheekh Cabdiraxmaan Sudays laga joojiyey hawshii uu ka hayay labada masjid ee barakaysan, Kacbada iyo Nabawi.